markii aad dhahdo waan ku jeclahay waxaad balan ku samaynaysaa qof kale qalbigiisa waa inaad muujisaa ficil si aad u caddayso jacaylku ma ahna oo keliya orahyo la yidhaahdo laakiin waa ficil wanaagsan jacaylku ma ahan dareen keliya jacaylku waa daryeel jacaylku waa dareen ku baraya farxadda isla markaana muujinaya dabeecadahaaga kuwooda ugu wanaagsan kuna tusinaya macaanka noloshaada jacaylku wuxuu xambaarsan yahay naxariis wuxuuna keenaa isku dhowaansho iyo kalsooni miyaadan arkin mar kasta oo aad fiiriso qofka aad jeceshahay wejigaaga waxaa ka muuqda farxad iyo dhoolacadayn jacaylka wuxuu macno iyo qiimo u yeelaa noloshaada haddii uusan jiri lahayn jacayl noloshu waxay noqon lahayd mugdi laakiin jacaylka ayaa ah waxa iftiiminaya nolosheenna in aan ku noolaano jacayl waa arrin ku dhisan diinteenna waxaad arkaysaa in badan ay diinteenna nagu amartay in aan waalidiinteenna qaraabada xaaska carruurta deriska iyo dhammaan dadka noogu dhowdhow jeclaano waana sababaha ugu weyn aan ku galayno jannada in aan isjeclaano oo jacaylka uu noqdo mid dhexdeena ku faafisan nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay allaha naftayda gacantiisa ku jirto jannada ma galaysaan ilaa aad ka rumaysaan mana rumaynaysaan ilaa aad iska jeclaataan ma idin tilmaamaa wax haddii aad samaysaan aad isku jeclaanaysaan salaanta dhexdiinna ku faafiya jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo